koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan saad u hesho xubinta kalamaan maalin walba fadlan subscribe saar page-kan Dulmidiid Media wareer kalamaanow soonka soon siyeed sabta sagaala baan layniin sheegasan geega baan i rundhati walaa'isin sheegdan ani edaaye geeraduna wareer kalamaan ee washirni mayarnay halimaandeeg haytay webiga kadhiidi lanko kakaana andooran ensuus hambiye langa gacanti teegidi unana anka shibli lankii usiga haayortiba geeljirahaay geelna oobu weba kadhii maxbaha kolo dabaalmagoroda geeljirana kadoran dabaalmagoroda may kale hangeentaas ka dheer hay deerayay halimadii salkibiyo iyo fadhaati deebtiye hore may bagaade dad oo koonfurtuha ka jeeda deebtiye dambana may bagaade dad waqooyiguha ka jeeda uurka jirteena hataleska haysee dheegay magaar janina maga gogolan fidsadeeyada lahaay haliyeeda haytay ilmo ambirayno bariiska suuganka weeldhanana noo diidan iridooyin inoo lacagaloona shida kiirteena hasiin gala waayni ee may weelasaana sakaraada etiina inta isan yaasin gefna halsin yaasim yoy ulma yaasinka gorata buute warniyo may weeladaas maana kala wareega Soomaalida muqdisho kuma ekaayaanta xitaa Kenya siyaasigii taga soo kala wareegaya muqdisho dib loogu soo celinaya gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu tagay degmada Holwadaag markaas wuxuu Facebook soo dhigay halkan degmada Holwadaag ka shidan tahay markaas saxaabada awalan wax la qabanay jirin wadooyinkan waa xiriin Facebook oo la hal ahaado war gobolka Banaadir war kama hayside odayaashii ka turjumaya dadka degan waa hadleen waxayna yiraahdeen dawladdu waa nacaburisaa wadooyinkiina waa naga xiratay dadkeenana waa baabi'isaa waxna nooma qabato bulshada uma adeegto canshuurtana annaga bixino wax walba ku fangarayna hadda waa ka tashanaynaa maamul Banaadir state la yiraahdana waa dhisanaynaa warnimada waxaa la yidhi dayacanay dareenkiiyo wacyigu kaama daadagoe dullaal kaa danaysanahayo tiis u deedamaya oo dabinna kuu qoolayaad hawl u dirataaye inuu kugu dul nooliyo ma aha kaa dukaansadoe diirdiirta iyo dulunka waa layska didiyaaye ninaan kuu dubnuxin baad u tahay daabad weligaae hilbadoonka falan soo bulshooy kama digtoonaatid warniyo gabaygaada hay-adda caafimaadka adduunka ma dhegaysato waxayna tidhaahdeen dadka aan weli guursanay iskaabulada waa in lagu daraa ururka naafada adduunka waana naafo hadda wixii ka dambeeya warwarkaada ma fahmin nin nabad inoola ka tirsanaa ayaa damcaynu laba dhikaaro noqdo markaas xilka laga qaaday awalna wuxuu ahaa xubin ka tirsan guddiga isgaarsiinta xisbi siyaasiga ku biiri markaas nabad inoola qarrafay u siisay war lanka hilaale ka gaadi adalata madile ka gaaday turkiga jiray misroogi war ninka calishaan ayaa la yiraahdaa Mareykanka uu jooga oo kaalay geel sunnada islaameed la mid geela nabad inoo ku soo daray war ma haysaane xaaladda gobolka Hiiraan waa qasan tahay madaxweyne waarana wuxuu magacaabay gudoomiyihii afraad ee gobolka Hiiraan yuusuf dabageed oo shalaha inta xilka laga qaadinay wuxuu yiri madaxweyne waare cadaalad darro ayuu gobolka Hiiraan kula dhaqmay lacagtana waa ka aruursadaa waxna uma qabto war dawladaha dhan dadka canshuurta waa ka qaadan kumana soo celshaane muxuu kala biyay madaxweyne waare warwarkayga dhaxgalay yuusuf dabageed waxa kale oo yiri si madaxweyne waare ka madax banaan ayaan gobolka u maamulaynaa kadibna wareegtidiisa xilka looga qaaday ayaa soo baxday wuuna diiday wuxuu yiri xilka leegama qaadi karo madaxweyne waarana xafiis kuma leh gobolka Hiiraan hadda nimanka gobolka Hiiraan xaaladiisu waa qasan tahay wasiir Shabeelle waa laba gobol madaxweyne waare afar mar gudoomiyaha gobolka Hiiraan ka qaaday xilka gobolka Shabeelle dhaxana hal gudoomiyaha wali madaxweynaha la shaqeynay aan helan yeesman sidis bihilka gaalow ma jara war waa rajo waxaad sheegaysaan magaalada Muqdisho waxaan uga baahanahay mas'uul ninkii soo magacaabay dhaliilihiisa sheega yaa ina baagni shibto hamiin lisaahil kun qarrafna noo soo fadaasi ma magal fayle warnimada dhacdooyinka argagaxla waa soo badanayaan sarkaal boolis ayaa degmada Xamar Jajab asoo meeyda lagu arkay shalay asiga isdilay ayaana dadka qaar yiraahdeen dad kala badan waxay yiraahdeen waa la dilay isma dilin guri dawladda ay leedahay la yiraahdo hadda ka hor ka guuraasna wuxuu yiri meel uga guuro ma hayo marka magaaladan dhacdooyinka foosha xun way ku soo badanayaan war hadda guri dawladeed ka guur ma dadalada ku xigta warnimada waxaan u malaynayaa arrintii Jamaal Qashiyo kala Xamar ka bilaabatay askariga ciidanka boolis ka tirsan meesha lagu dilay
waa wadada dabka askari kala dilaan la yiri warnamada booliska warka ma haysaane waxay soo bandhigeen nambarka gurmadka degdega ee 991 waxaa si ugu badnaa ninba Facebook wuxuu ku soo yiraahday maxay 991 nooga dhigeen ma waxay xasuusinayaan 1999 nambar kale miyay waayeen buu yiri warnamada hiiraan ee muqdisho dadku ka hadalaasana koonfur galbeed meel nabadeeda hayti obse ma jirto sheeg alow dharan dadku ku hayti wasiiradii madaxweyne lafta garan magacaabayna wadooyinka walaagi shiid ayaalan halku biro haagan halangaado hal nadiif oo eeran wiliba ma intaas dheer ka daray tan muqdisho ka baaso bay dhaw jinaay ka hirin walaagi shaydaan oo baawaja ka gabadaan lugtahay mariyo eeri walaay ko ani in ko ana reedan isaga ha walaago suuqa yara ii jarta in karaad lahaada waana obowreeyo mansuur warjay ma ka darnay ogaadahe warmada isaaqa horta xudur iyo baydhabo ma la isku furay guda madi horeba malas la gabnaa war koonfur galbeed kuma weydin meesha foolnaysa waa Jubbaland doorashada loo tafaxiidinaya xilwaanadii Jubbaland waxa la yiri muqdisho Kismaayo tartan loo jira marka waxaan ka xabsanayaa in muqdisho Kismaayo laga dul qaado bu'aala laga soo xulay xilwaanada anigu waxaan la yaabanahay ninka musharaxiinta kamida oo yiri qabiil kasta ay saddex nin ha ii keensado ninkii dooran lahaayeen ka xulanaya kulay meel laga soo xulaba xildhibaan Soomaaliyeed muran iyo qayle iyo mooshin waa ka diyaar war madaxweyne xaaf oo dhuusmareeb ku laabdo wuxuu yiri si degdeg canshuurta loo bixiyo cid noo maqan ma lehe war meesha waa iska fadhidaane deegaanka leeyahay af urur oo ka tirsan gobolka bari al-shabaab ayaa la wareegay war xagee ka baxday baaw shabaabku waa iska celinayna warnimada waxaan ku riyooday dawladda Kenya oo tiri Soomaaliya qaadka ka gadan mayno meesha rabaan u doonteen war wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma waxay ku riyootay ayadoo badda Soomaaliya moot iskaafa ku wado oo tuma ay dabaysho ruuxayaan war islaamtaas awalay tuma islaameed ku riyootay haddana ma bad islaameed la dul maray ku riyootay war wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica haday riyooyinka badan joojiyayso wallahi waxaan u sheegayaa gabadhan laga dhigay duqa magaalada Beledweyne Mombasa la wareegtay gabarisay duqu noqon kartaa ariya war ma waa duqda magaalada Beledweyne waryaaya waa hadal badantiin waana xigmad yartiin dalka maxaad u qabataan war dalka sheegasan taniinkiyaada kooytikeena war madax kasta oo soo sharaxda boqol balnay balan qaadaan wadooyinkii furnayna waa si xiran warnimada laga bilaabo saacan waxaan mamnuucaya daadaansiga shisheeya war walaal mamnuucsan yaalan adiib lama baasboor weeytay waryaaya nagu kala kaxeeya meesh Abdullah soo baxani Abdullah Imran laga taga cadaalad Allah idin siiyay